السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا مركله جنال كعبد إيد جنال وأنا كسر قد بنو حيالها إسلامها وحنا أنفعيان أمد الصوماليات سدا وذا أكتهين مالمها نوحن جنال كان وجه الليني أنا عسيو كل ددوان وأتكسم كرتو دلك كانيا أو رهانتي هدي أتكسم يسوي دمد درس كان سدا وكلا أتكسم كرتو ميل والبابا كفران لأن يرى يا واحد يسوي دي سي محاد كانيا كليا وجه هذا الشيء دلك صوماليا dadkii joogay maxaad ay laftirkooda ganacsiyo ay sameyn karaan maxaad macnaha aad uga soo hadli weyday dad badan oo janaalkan ku xiranna waxay joogaan Soomaaliya almost 30% of dadka idaawada boqolkiiba 30 Soomaaliya ay joogaan sidoo kale boqolkiiba 17 miyaa miswaxsaasa waxay joogaan dalka Kenya Mareykanka Ingiriiska so everywhere meel walba marka maanta waxaan go'aansaday inaan idin sheego ganacsi run ahaantii markaan baaritaanka sameynay aan la yaabay inaan ciduna weli aysan samayn horta Kenya dhalinyaro badan oo Kenyaana ba sameysay sida gabadha halkan idinkaga muuqato kale kan ay idin soo saaraya laakiin Soomaaliya ma ogi umana malaynayo sababtoo ah baaritaan baan sameeyay baaritaanka markaan sameeyay waxaan ogaaday waxyaalaha aan ka hadli doono wax ka mid ah in dabadda laga keeno taas waxa ku tusaysaa haddii dalkii ay ka jiri lahayd dee dabad lagama keeni lahayn haddii dalka ay ka jirtana ma ahan big scale waa small scale waaye waa wax yaroo macnaha xaafada iyo waxaas lagu sameeyay ma ahan wax ma garanaysaa dalkii deeqi kara sidaa la adligeed halkaa waxa ka soo opportunity ba iga muuqatay haddaba maanta ganacsigan rabo inaan ka hadlo oo dadkiina Soomaalida oo Soomaaliya jooga iyo dadka Kenya jooga iyo wadamadaas Afrika oo dhan dadka jooga is leeyahay lacag bay ka sameyn karaan qaasatan dadka Soomaaliya jooga waxa la yiraahdo value addition waxa waaye wax jira inaad value ku darto yani shay already marketka yaala in aad value addition ku samayso aad qiimihiisii kordhiso sababtoo ah waxaad ku kordhisay wax kale tusaale ahaan waxaan baarayay baradhada ay Soomaaliya kala soo degto dalka Ethiopia sababtoo ah waxaan daawaday video dalka Zimbabwe oo TV-ga GTNN la yiraahdo oo Chinese-ka uu ka diyaariyay Zimbabwe uu ka diyaariyay wuxuu kaga hadlayay in Zimbabweantii baradho ay beeraan qaab ka duwan qaabkay u beeri jireen oo ah ay u beereen marka waxa isbedelay mirihii u dhalan jiray haddii ay halkii xabba ay dhali jirtay 2 kiilo kale halkii beer ay meel ku sameeyaan 2 kiilo kale hadday kaga bixi ay ka heli jireen waxay noqotay tan 4 kiilo bay noqotay marka innovationkaas waxa soo saaray nimankan Yahuud la yiraahdo Yahuud aad bay beeraha ugu fiican tahay innovationka waxyaalaha la yiraahdo waa sida drip irrigation wax la yiraahdo kale oo beeraha aad loogu isticmaalo oo tuubada inay dhibicda ay ka dhibciso geedka hoostiisa lagu waraabiyo meeshii biyo lagu furi jiray oo biyo badan ay beero u baahnaayeen cilmiga drip irrigationka waxa laga soo saaray sheeg Yahuuda soo saartay dhulkan ay haystaan ee Palestine baa waxa dhacday 60meeyadii mise 70meeyadii markay ahayd biyo gelin baa la sameeyay marka meel desert ah oo aan geedo ka bixin oo waxba ka bixin baa mid kamida cilmi baarayaashii meesha joogay baa wuxuu arkay geed iska cagaaran oo bagaranaysa ubaxa tuuray marka uu baaray cilmi baarista mugta markaad waqtina hayso nololna aad haysato waxyaalo badan waad fikiraysaa maskaxdaada marka geedkaas uu arkay geedkii markuu arkay wuu baaray marka wuxuu ogaaday in geedkaasi ay agmarto tuubadaasna ay meel yar ka daloosho oo ka dhibciso drip irrigationka saasaa lagu keenay marka innovationkana waa innovation baradhada uma baahnid inaad ciidda ku beerto waxaad ku beeraysaa jawaan Soomaaliya waa laga sameyn karaa dadka Soomaaliya hadaa weydiiso baradho dalkii ma ka bixi kartaa may ay ku leeyihiin
wasaaradda beeraha Soomaaliya haddaad buugaagta haddaad aqriso waxyaalaha ka baxa Soomaaliya ka mid ma ah waa been weeye waxaan baxayn ma jirto isku day bay u baahan tahay iyo inaad cilmi baaris ku samaysid jawaan baa lagu beeri karaa wuuna ka dhalmo badan yahay waa ka mira badan yahay oo waa ka soo wax soo saar badan yahay baradhada dhulka laga beero jawaanka ka beer lagu beeray anyway waxaan baarayay baradhada yacni Soomaaliya ay soo degsato marka World Bank 2023 wuxuu soo saaray warbixin uu kaga hadlayo baradhada meelaha ay ka soo degsato Soomaaliya iyo intay wadamada ay ka soo degsato iyo lacagta ay kaga baxda inay baradho soo degsato marka dalka ugu badan oo baradhada keena wadanka Ethiopia way waana ogaa walibana numberka ay sheegeen waxay dhaheen 15 milyan 0.3 ba sanadkii Ethiopia oo baradho bay keentaa wadanka Soomaaliya inay ka badan tahay waan maleynaya laakiin waxyaalaha aan la cajabay waxa waaye Soomaaliya kaliya ma soo degsato Ethiopia ma ka soo degsato baradho waxaan ogaaday waxay ka soo degsataa Egypt baradho waxay ka soo degsataa United Arab Emirates baan baradho ka soo degsanaa imagine ka fakar United Arab Emirates baan baradho ka soo degsanaa Pakistan baan baradho ka soo degsanaa Pakistan waa dhul beeraley ah Egypt baan ka soo degsanaa waa dhul beeraley ah oo Nile baa mara waxaan ka soo degsanaa United Arab Emirates you know why waa fiiriyay waxaan ogaaday baradhadan ka soo degsano in la yiraahdo chilled potatoes waa baradho frozen ah oo la freeze gareeyay waa chips waa French fries aliyan chips ta meelaha ka cuntaan waxa laga keenaa Egypt iyo Imaaraadka waxaana la keenaa iyadoo chilled ah oo qabow baa la keenaa frinjeer baa lagu ridaa kadibna saasa loo serve gareeyaa imagine marka Egypt waxay u soo dheefisay 500 oo kun oo dollar 2023 oo chilled potatoes la qabow ah waxaad u baahan tahay marka waalidiin badan oo Soomaaliyeed waxay sameeyaan ilmaha markay iga tahriibin bay anaka hal dhibaataan haysata Soomaaliya waxaan haysata waxaan sameeynaa isku wax ma fakarno qof baa bajaaj la soo degay lacagtii $10 buu soo xaraysay $4,000 buu ka bixiyay kurtigeen bajaaj baan wada dalbanaynaa maxaa loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay inaad fakarto bajaajtan waa $4,000 hadda ganacsiga aan ku sheegayo baradhadii dalka waa taala waxaad u baahan tahay cold room wax leeyahay cold room hadda Alibaba ka fiiriso cold room waa guri qabow solar korontada waa qaali waa ogahay Soomaaliya waa ka fakiray iyo Kenya iyo Afrikada waa qaali waaba ka daayba off grid ban ka dhigay off grid macnaheedu waxa waaye uma baahnid korontada dalka oo gridka uma baahnid waxa la yiraahdaa cold waxa la yiraahdaa solar powered cold room guri qabow oo power gareynayo korontadiisa wata oo solar dusha u saaran oo waxaynay ay korontada ka helayo wax ku qaboojinaya maxaad sameynaysaa marka alaabo yar baad soo gadanaysaa oo ah potatoes ka baradhada kii dhaqayay oo bil gareynay waxaad u baahan tahay kii lagu jarjarayay macaa hadii ayadoo way jirta halkan aan soo saaraya ayadoo waa jirta systemkii oo dhan fadhiya lacag badan maaha $2,000 $1,500 baad mashiinkii ku bil gareynay ku jarjaray ku bacaynay wixii oo dhan aad ku soo gadan kartaa small scale hadii aad lacagtaas haysan waxaad sameyn kartaa si manual ah baa loo sameynaya dadkana shaqaad u abuuraysa adigana shaqaad abuuranaysa waxaad soo gadanaysaa cold roomka $1,500 buu joogaa mid xoogaa yar waxay ku xiran tahay intuu weyn yahay $1,500 hadda Alibaba ka fiiri inta TV-ga balkan aad daawanayso videogan hana iloobin inaad like-ta iyo share-ta iyo subscribe aad tiraahaan sababtoo ah waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed waana la ka tagay inay ummadii gaadho haddartan TV-ga aniga aad waxaan u daawadaa Kenya dhalinyaradeeda iqtiraaca ay sameynayaan waa naxaysaa waxaana weeye waxay haystaan dad guubaabiya dad u soo bandhiga xirfadaha ay sameyn karaan kadibna way ku amal falaan wayna sameeyaan wayna guuleystaan annaka dhalinyaradana sidaas oo kale aan u baahanaa waxaan u baahanahay ummadii Soomaaliyeed in information la gaarsiiyo kadibna maanta dhan waxay daawanayaan
maxkamadda daahir cali sow iyo bahashii magaceedii gabadhii maxay ahayd gabar aad ayaantan u haysatay tiktok istaahil ilaah baan kugu dhaarshay jaamacad baa looga baxaa youtube-ka anyway arrimahan ka rabay inaan ka hadlo ma ahayn arrinkaasi subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta waa aad buu muhiim u yahay subscribe-ta welibana iyo like-ta jir roomkaasaad soo gadanaysaa call room waxaa la yidhaha waxaad ku qoraysaa calibaaba ku qor anaa kuu soo gadi karaa waad ila soo xiriiri kartaa fadlan haddii aadan serious ahayna telefoonka aniga I'm very busy I'm not a youtuber ma ihi waxaan ahay waa hobbigayga qof banooni buu ciyaaraa qof tv buu daawadaa qof video buu daawadaa aniga hobbigayga waxa waaye aan dadka wax u gudbiyo on youtube video aan soo dhigo that's my hobby marka hobbigayga waaye waxaan youtuber ma ihi waqtigaygii baan waxaan ka soo geynayaa in yar oo aan rabaa waxaan ogahay inaan kula wadaago jir roomkaasaad soo gadanaysaa waxaa la yidhaahdaa solar powered cold room baad soo gadanaysaa alaabadii lagu jarjaraya halkaanaan soo saaraya iyadoo la jarjarayo iyo midkii biilgaraynayay alaabtii baad jarjaraysaa live horta waxaad samayn kartaa haddaad muqdisho kale joogto oo kale xayaat supermarket oo kale aad u tegaysaa waxaad leedahay waxaan rabaa inaan idinku soo deliver gareeyo inaad french fries oo dalka lagu sameeyey oo preservation iyo balaaye aan lagu soo darin iga qaata kaama qaadanana hadday ku yidhaahdo okay shelf siiya meel aan dhigto commissionna waa igu leedihiin supermarket kastaa tegaysaa maqaaxiyaha tegaysaa kafeteriyadaad tegaysaa chicken in meesha la yidhaaha tegaysaa oo ma garanaysaa aad leedahay bahashaasaan hayaa oo fresha bahashaasaad jarjaraysaa vacuum for backing waa ku samayn kartaa iyadoo dabayl la gelinayo iyadoo baca caadi haddii la gelinayo ilaa 5 beri bay noolaanaysaa kadib way halaabaysaa haddaad bannaanka dhigto haddii aad vacuum packaging ku samaysana ilaa 15 beri bay gaaraysaa haddaad freeze garaysidna sanaday gaaraysaa marka waa value addition baradhadii dalka taallay oo dad Egypt iyo Dubai jooga ay ka faa'iidayaan adigu ay ka faa'iidi kartid taas waa samayn kartaa sidoo kale waxaa la mid ah waxyaalaha smoothie-ga laga sameeyo kale Soomaaliya maangaho kale marbuu soo kacaa marna lama helo mooska marbuu soo dhacaa marna lama helo smoothie baa lagu cabaa maqaaxiyihii iyo wadankii waxay bilaa dadkii waa ilbaxay hoteelo waaweyn baa la furayaa bahalkii baa la furayaa adiga waxaa loo baahan yahay maantay in aad arrinkaasi aad ku sii dhaqaaqdid si adoo established ah oo wadankii xididada businesskaaga u adkaaday oo lagu bartay oo brandigaaga uu caan noqday aad wadanka ula jaan qaadid marka waxa kamid ah cambaho kale waad soo gadanaysaa waad jarjaraysaa you are freezing it low seasoning markuu gaaro toos baa ugu geynaysaa qofkii kafeteriga haystay waxa u fudud intuu cambe jarjari lahaa baalkaanoo la freeze gareeyey intuu soo baxsado bacdii soo baxsado ay ku taalo samatar frozen mango baxnaan frozen mango deeqo frozen mango yah adiga magacaaga la bax geli suuq gee marka videogii wuu dheeraaday tan iyo intaan dib dambe u kulmi doono wiilkaas Soomaaliya message-ka iga soo qoray halkaasaan saarayaa commentigii uu soo bixiyey uu su'aashaas ugu weydiinay waxaan jeclahay inuu maanta wuxuu ka fikira haysto tan iyo intaan dib dambe u kulmi doono ha iloobinina inaad like ta saartaan subscribe garaystaan sharena tirahdaan hype wax la yiraahdo baa lagu soo kordhiyey hype tana aad hype garaysaan youtube-ka waa mahadsantiin.